duhur wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka duhurnimo ee raadiyaha Simba. Dowladda Soomaaliya ayaa duleedka magaalada Muqdisho ku xayirtay gaadiid iskaga goosha xuduudaha Soomaaliya ay la wadaagto dalalka Itoobiya, Kenya iyo sidoo kale 8 gobol oo ka tirsan gudaha Soomaaliya. kulan looga hadlayo xiisada ka soo cusboonaatay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa ka furmaya degmada Balad Xaawe ee gobolka Gedo. khilaaf xoogan ayaa soo kala dhex galay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa koobaad ee maamul goboleedka Jubbaland oo muddo ka maqan magaalada Kismaayo. maamulka Somaliland ayaa ciidamadii ugu badnaa waxa uu duldhigay deegaano ay ku sugan yihiin wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka Puntland. faahfaahin dheeraad ayaa ka soo baxaysa weerar culus oo lagu qaaday saldhigga ciidanka booliiska degmada Boorama ee gobolka Awdal. maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ku guul daraystay sida la tilmaamay sii wadida howlaha ku aadan nabadda gobolka Mudug. muran xoogan iyo musuqmaasuq ayaa waxa ay hareeyeen sida la tilmaamay dhismaha maamulka degmada Galdogob ee gobolka Mudug. wararka dibadda ee duhurnimada tan aan idiin haynana waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo shaacisay in gudaha waddanka Yemen ay ku dishay horjoogo sare oo ka tirsan Al-Qaacidada ka dagaalanta gudaha dalka Yemen, iyo safiirka UK ee Tehran oo dib ugu laabtay waddanka Iran kadib markii dhawaan lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay kana qayb galay rabshado ka dhacay magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iran. waa duhur Jimcaha, taariikhduna waa 7 bisha labaad sanadka 2020. ku soo dhawaada dhageystayaal wararkaas oo faahfaahsan. dowladda Soomaaliya ayaa duleedka magaalada Muqdisho waxa ay ku xayirtay sida wararku ay tilmaamayaan gaadiid iskaga gooshi jiray xuduudaha Soomaaliya ay la wadaagto wadamada Itoobiya iyo sidoo kale Kenya iyo sidoo kale 8 gobol oo ka tirsan gudaha waddanka. waxaa gaadiidkan oo 100 ka badan ay ku xayiran yihiin duleedka magaalada Muqdisho siiba wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye ee gobolada Shabeellaha Hoose iyo Banaadir. gaadiidleyda ayaana waxa ay sheegeen in tacadigan uu yahay mid ka yimid dhanka hay'adaha amniga ee dowladda dhexe ee Soomaaliya, kuwaas oo gaadiidka u diiday inay u soo gudbaan magaalada Muqdisho. gawaaridan ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen inay iskaga gooshi jireen xuduudaha Soomaaliya ay la wadaagto dalalka Itoobiya iyo sidoo kale Kenya iyo sidoo kale 8 gobol oo ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, kuwaas oo loo diiday in ay magaalada Muqdisho u soo gudbaan oo cagta soo dhigaan. gaadiidleyda qaar ka mid ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada amnigu ay wadooyinkaasi xireen, waa wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye ay xireen iyadoo aynan wax shaqo ah ka soconin, waxayna taa ku tilmaameen cuburin lagu hayo shacabka Soomaaliyeed ee sida la tilmaamay gaadiidkaas oo shixnadaha kala gedisan ugu geyn jiray meelo fogfog oo xitaa xuduudaha waddanka ka baxsan. gaadiidkii wadada waa farmaaday way ka xiran tahay, wadada shaqa kama socoto, hadday shaqa ka soconayd waa qancinahay, dadku waa qanacanahay, gaadiidku waa qanacanahay, wada shaqa looga hayo macnaha way ku qanacanahay. baabuurtan xamuulka waa baabuurta ilaa Itoobiya doolow iyo ninka la yidhaahdo Madeera inta ka dhaxayda ilaa Kenya, baabuurta inta oo dadka Soomaalida degaaba ay qoorisaa u geysaa noloshooda ay geysaa oo xamar dekedaha ka diga xamar ka diga وبغاشka ama bariiska ay sokorta u leeyihiin bagaashka umada waxay ku nooshahay labada xuduud wadada halbeeraha waaye nalso. marka arrintaas waxa weeye waa arrin culus waaye, hadda ma garanayo kulli waxa weeye rabitaanka umada. gaadiidleyda ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay dowladda dhexe ee Soomaaliya ay ka dalbanayaan in si degdeg ah loo furo wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye. waxa ayna sheegeen in dhibaatada haysata ay tahay mid saameyn badan ku leh guud ahaan waddanka, iyaga oo xuseyn dowladdu aynan ka fiirsan kolkii wadadaasi ay xiraysay xaaladda la soo gudboonaan karta dadka shacabka ee ku nool 8 gobol oo ka tirsan dalka iyo sidoo kale dadka shacabka Soomaaliyeed ee ku nool xuduudaha dalku la wadaago wadamada Itoobiya iyo Kenya. waxayna sheegeen tan inay qayb ka tahay cuburin madaxda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku hayaan shacabka Muqdisho. waxaa la rabay in laga fakero wargaadiidkan 8 gobol ayuu iska kala gooshaa wadadani, halkan waddo 30 kiiloomitirada shaqada laga hayo iyo xamar 8 gobol ay xiriirisa oo meel kale loo soo maro wax la argay cirka mooyee
ma laga fekerin markalow haddii wadada la sameeyo dib baa loo qabay waana faahfaahsaneed laakiin haddii la sameeyo dadka xaggee marayaan 8 gobol waxaan ognahay oo xanuunsan meel la mariyo male oo maanta korfa islaan foola meel la mariyo male wixii dhow wax kariin xaalasha biyaha iyo afgoy isuma socon karaan xaalasha dhexeeya xataa istaalada looma socon karo xukuumadda waxa weeye ninka wasiirada harusheegayna arrintaas inay ay ka fududaysan waa xawlantaa wadadii dib baan qabnaa gaadiid yar iyo mid weyn inta ka dhaxaysa meel la mar lama haayo wada lama siinin kadiriyaasha ayagoo shaqeynaya xamar laamiyaa laga dhisay xamar ayagoo dhinaca ku wada ninka la yidhaahdo soodkaas ka shaqeynaya laamiga shilaya dhinaca kala marayni annaga muwaadiniina naala noolaanaa rabnaa arrintaas yaa la fududaysanin codsiyaa nahay waa codsanaynaa noo furay saddexdii maalin ee lasoo dhaafay ayaa la tilmaamay in guud ahaanba la joojiyey gaadiidkii iskaga gooshi jiray gobolada kala duwan ee dalka oo ugu horeeyo gobolka Shabeellaha Hoose oo caasimada wadanka Darisla waxaana sidoo kale la tilmaamay in joojinta wadada gaadiidkii isticmaali jiray Muqdisho iyo Afgoye isku xirta sidoo kale inay saameyn ku yeelatay gawaarida xamuulka qaada iskaga goosha xuduudaha Soomaaliya ay la wadaagto wadamada Itoobiya iyo Kenya. kulan looga hadlayo xiisada u dhaxaysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa ka furmaya degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo halkaas oo kolka horeba xiisadaas ay saameyn ku yeelatay. Maxamed Xasan Bikola ayaa faahfaahinaya. Ismaan Nuur Xaaji gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Gedo ayaa sheegay inay wadaan sidii loo xalin lahaa ama loo damin lahaa xiisada u dhaxaysa dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo abaabulka ciidan ee xilligan ka soo cusboonaaday xuduudda labada dal. sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Gedo ayaa tilmaamay in maalinta bariyaata ay la kulmayaan wafdi ka socda ismaamulka Soomaalida waqooyi bari Kenya si loo xaliyo khilaafka u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ka oo salka ku haya baxsashada wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan oo ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Muqdisho isagoo xilligan Cabdirashiid Janan ku dhuumaalaysanaya qaybo ka mid ah dalka Kenya waxaana wasiir Janan dowladda federaalka Soomaaliya dhawaan ay ku eedeysay inuu galay dambiye ka dhana xuquuqul insaanka iyadoo ka codsatay dowladda Kenya inay soo gacan geliso si loogu maxkamadeeyo dambiyadii uu galay sida dowladdu ay sheegtay. wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa xilligan ka wada abaabul ciidan qaybo ka mid ah dalka Kenya si uu gacanta ugu dhigo guud ahaan gobolka Gedo oo xilligan gacanta ugu jira dowladda federaalka Soomaaliya. waxaana wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo sidoo kale maleeshiyadu wato la sheegay inay ku sugan yihiin xuduudda u dhaxaysa gobolka Gedo iyo sidoo kale dalka Kenya isagoo la sheegay inuu damacsan yahay inuu markaasi qabsado degmooyinka Dolow iyo Balad Xaawo ee ka tirsan gobolka Gedo. sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Gedo ayaa tilmaamay in maamulka waqooyi bari ee Kenya ay markaasi ka wada hadli doonaan sidii iskaga kaashan lahaayeen dhinacyada amniga iyo sidoo kale dhaqaalaha sida uu hadalka u dhigay. insha Allah taala waxaan jeclahay in hadday imaan weydaan hadee ciday u roonta ku jirta Kenya waa hadlayna anigoo afka maamulka gobolka Gedo ee ku hadlaya waxaana tagayaa insha Allah hadda aan ku socdaa safar maanta ugu socdaa degmada Balad Xaawo waxaana balansanahay madaxdii madaxda Kenya xadiida sida baradka Kenya iyo mas'uuliyiinta kale oo Kenya waana wada hadlaynaa insha Allah waxaan jeclahay inaan fahmi doono haddaan fahmayna xadiidaha dan baan u kala xirnayna diyaarada madaxda gobol ee Soomaalida nahay ayagana waxa ay madaxda gobol ee Kenya dowladda Soomaaliya ayaa rabay inay ka ganaayo xadiida حديثنا سهلة تدين الصومالي والمغلى كان حديث هذا اللي واحد جبنا ديار معهن إن شاء الله واحد حنجع علينا لسان بلح جار هذا قصة كرت مجلسه هنقول هذا جار روسي هذه سنة مجلسه بلح وحاجة حسفاء إذا ما حق قبل الصوماليات إمام الجبل القوانية الجامنية وأنا سيف شعبك جبلان جارهان تجمد بلح ويجانا حديثها جوجنا أدبي أمني يد سبيان جيجان كذا hadalka gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Gedo Ismaan Nuur Xaaji ayaa imaanaya xilli dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo badan ay geysay gobolka Gedo iyadoo dowladdu sheegtay in markaasi ay uga gol leedahay arrimo ka dhan ah al-shabaab sida hadalka u dhigtay balse maamulka Jubbaland ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya inay doonayso inay guud ahaan majaxaabiso maamulka Jubbaland. maamulka Jubbaland ayaa sheegay in haddii dowladda federaalka Soomaaliya aysan ka fiirsan xilligan dhibaatada ay ka wato gobolka Gedo ay mas'uuliyaddeeda qaadan doonto wax walba oo ka dhasha.
isla Jubbaland khilaaf xooggan ayaa soo kala dhex galay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa koowaad kaas oo in muddo ka maqan magaalada Kismaayo. xog la helayo ayaa waxay xaqiijinaysaa in khilaaf xooggan uu ka dhex taagan yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa Maxamuud Sayid Aadan kaas oo asaga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Jubbaland ay muddo ku sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee wadanka Kenya. wararkaanu helayna waxa ay tilmaamayaan in khilaaf soo kala dhex galay madaxda sare ee maamul goboleedka Jubbaland ay sababay in Maxamuud Sayid Aadan uu iskaga tago magaalada Kismaayo isla markaana uu hooyo gabaad intaba ka samaysto qaybo ka mid ah Waqooyi Bari ee wadanka Kenya waxaana muddo ku sugan yahay magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari. mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland ayaa waxa ay sheegeen in khilaafkani uu salka ku hayo dhowr arrimood oo la xiriira waxa laga yeelayo xiriirka dowladda federaalka kan Kenya iyo sidoo kale sida loola dhaqmi doono ayaa la yiri maamulka gobolka Gedo oo isbedel uu ku sameeyay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Maxamuud Sayid Aadan ayaa la tilmaamay in wixii ka dambeeyay markii doorasho ay ka dhacday Jubbaland isla markaana dib loo magacaabay khilaafka madaxweynaha kala dhaxeeya uu dib u soo xogeystay isla markaana uu iskaga tagay magaalada Kismaayo. muddo asbuuciya waxa uu ku sugan yahay magaalada Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari ee wadanka Kenya waxaana wararku tilmaamayaan in maanta uu kulan la leeyahay mas'uuliyiin uu ka mid yahay Cabdirashiid Janan iyo sidoo kale madax kale oo saraakiil ciidan iyo kuwa heer degmo ah oo ka soo baxay sida la tilmaamay gobolka Gedo qaybo ka mid ah kuwaas oo galay xuduudda Soomaaliya iyo Kenya ay wadaagaan. khilaafkani waxaa la tilmaamay in uu salka ku hayo in wada hadal iyo sidoo kale qaabab kaleba lagu bedelo xurgufta ka taagan deegaano ka tirsan gobolka Gedo. Maxamuud Sayid Aadan madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland ayaa la tilmaamay in muddo uu ku sugan yahay xarun ciidan oo ku taala magaalada Mandheere isaga oo weeliyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedka Jubbaland. mas-uuliyiinta la sheegay in khilaafka uu kala dhaxeeyo madaxweynaha Jubbaland oo dhankooda xiriir la sameynay waxa ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan khilaafka la tilmaamay inuu ka dhaxeeyo madaxda sare ee dowlad goboleedka Jubbaland. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka aan xiriir la sameynay ayaana tilmaamay in arintaas ay tahay mid ay baahiyaan shakhsiyaad doonayeen iska hor keenaan madaxda Jubbaland waxa ayna sheegeen in uunan jirin wax khilaaf oo xilligan ka dhex taagan labada dhinac. ila ku sugan xafiisyada madaxdaas ayaa xaqiijinaya in khilaafka labada dhinac uu sii xoogeystay sidoo kalena la isku qabtay arrimaha la xiriira soo magacaabida golaha wasiirada cusub iyo qaabka madaxweyne Axmed Madoobe uu doonayo inuu u maamulo oo madaxweyne ku-xigeenka uu ka soo horjeestay. maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ku guuldareystay wada shaqeynta dhinaca howlaha amniga gobolka Mudug dhanka kalena muran xooggan iyo musuqmaasuq ay wadaan sida la tilmaamay madaxda sare ee Puntland ayaa ka taagan degmada Galdogob ee gobolka Mudug. wararkaas oo idil waxaa faahfaahinaysa wariyaheena Hodan Axmed Cabdi. muran xooggan iyo isqabqabsi oo ka dhashay musuqmaasuq ay la yimaadeen madaxda sare ee maamulka Puntland ayaa ka taagan qorshaha maamul u sameynta degmada Galdogob ee gobolka Mudug sida ay inoo xaqiijiyeen mas'uuliyiinta ku sugan gudaha degmadaasi. khilaafkan ayaa sida la sheegay yimid kadib markii wasiirka arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Dhabancad uu isku dayay in xilka gudoomiyaha degmada uu u magacaabo shakhsi aan ku imaanin rabitaanka shacabka degmada Galdogob ee gobolka Mudug. Maxamed Cabdiqaadir Afdhuub oo ah gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Mudug isla markaana ku sugan degmada Galdogob. gudoomiye ku-xigeenka ayaa sheegay in madaxda sare ee Puntland ay wadaan musuqmaasuq xooggan oo ku saabsan dhismaha maamulka degmada Galdogob waxaana uu xusay in madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni uu ka dambeeyo arrintaasi isagoo oo nasiib darro ku tilmaamay in madaxda Puntland ay la yimaadeen habdhaqankaasi aan wanaagsaneyn oo ku saabsan musuqa. waxyaabaha aan rabin maaragtay in maamul maaragtay laga dhiso Galdogob ama maaragtay danaha ay kala leeyihiin siyaasiyiinta maaragtay dowladda ku jira hawshan maaragtay ku lug tale ama saameynta ku leh. dab ahaantii wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Puntland waa ay ka gaabisay kaalinta ay ku lahayd laakiin
waxa weeye haddii maaragtay qof la iska soo hormariyo ama qolooyin la iska soo hormariyo waxaa imaanaysa inaysan meeshaasi waxba ka dhismin waa lagu kala tegay waa la isku fahmi waayey odayaasha maaragtay deegaanku ayagu maaragtay laftigooda way isxalin waayeen dowladda u gudbiyeen in maaragtay ay xaliso kadibna ayadan jawaab la siinin baa waxaa la yidhi waxaan soo ansixinaynaa shirka qabiislaha ah waa adigu markii xilliga ay noqonayeen marka wax aada looga xumaado wayna naafeynayaan waxaan leeyahay wasiir cabdiraxmaan dhaban cad waxaan leeyahay wasiir adaa hawshan maaragtay maamule waxa weeye degmaduna maaragtay intaas ma sii ahaan karto annaguna waa ka tashanaynaa haddii maaragtay uu maaragtay hawshaas uu wax ka qaban waayo waa ka tashanaynaa waxaan talaan iskaga imaanaynaa odayaasha iyo waxgaradka iyo siyaasiyiinta ay degmadu leedahay. dhanka kale gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka mudug ayaa ku eedeeyay madaxda maamulada Puntland iyo Galmudug inay ku guuldareysteen fulinta iyo dhaqangelinta heshiisyadii nabadda gobolka mudug oo hadda uu xusay in colaado ay kasoo cusboonaadeen deegaano ka tirsan galbeedka gobolka mudug asagoo intaas hadalkiisa sii raaciyay in mas'uuliyiinta ay ku mashquuleen arrimo siyaasadeed oo aan dani ugu jirin shacabka labada maamul ee Puntland iyo Galmudug. markii maaragtay ciidankan la sameeyey laga soo tago waxaa jiray guddi nabadgelyo oo maaragtay ka kooban odayaasha labada dhan run ahaantii xilliga anaga aan joognay odayaasha labada dhanba waxay u shaqayn jireen si wanaagsan bay u shaqayn jireen waxyaabihii yimaadeen noocaas isla markiiba si maaragtay degdega looga hortagi jiray dambiilayaashana maaragtay gacan bir ah ayaa lagu soo qaban jiray marka waxa weeye ciidanka keligiis wax ma fulin karo haddii maaragtay maxaan ku dhahaa odayaashii iyo labada dhan oo maamulkaba aysan la shaqeynin guddiga maaragtay waxaa kale oo maaragtay la shaqeynayay gudoomiyaasha labada gobol iyo taliyaal qaybeedyada labada gobol marka waxa weeye arrintaas habacsanaan baa ku timid in muddo-ada sidii maaragtay dhabteeda waagi hore loo wada shaqeyn jiray looma wada shaqeeyo marka arrimahaas baa maaragtay waxa ay keenayaan in maaragtay isku dhacyadu ay sii socdaan waayo wax maaragtay wax ka qabasho dhab ah baana maaragtay ka imaanin labada maamul. eedeynta loo soo jeediyay maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ku soo aadeysa xilli ay dib u soo cusboonaadeen dilal ku saleysan aanooyin qabiil oo ka dhacay deegaano ka tirsan galbeedka magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Somaliland ayaa ciidankii ugu badnaa waxa ay duldhigtay deegaano ay ku sugan yihiin wasiiro iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan maamul goboleedka Puntland. dhawaan ahayd markii dowladda Puntland Soomaaliya ay ciidamadeeda ku kala sugan gobolada Puntland ay tirokoob ku samaysay muddo haatan laga joogo 2 maalmood ayay waxay soo gaadheen degmada Naceel ee gobolka Sanaag wasiiro badan oo hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland Soomaaliya Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Col oo ka mid yahay wasiirka amniga Gallan oo ka mid yahay wasiirka maaliyadda wasiirka waxbarashada ee dowladda Puntland Soomaaliya kadibna ay ku sameeyeen ciidamada ku sugan degmada Naceel ee gobolka Sanaag ee dhawaan ka soo wareegay maamulka Somaliland ay tirokoob markaas ay ku sameeyeen ay muddo 2 cishaana tirokoob-kaasi ay ku wadeen kadib wasiirada hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka dowladda Puntland Soomaaliya oo iyagu markii hore baran ka soo bilaabay deegaamada gobolka Sanaag ayaa ugu dambeyntii waxay gaareen magaalada Dhahar ee gobolka Highland ee soo ka go'ay gobolka Sanaag ay ka tirtay dowladda Puntland Soomaaliya intaasi kadib ayaa ugu dambeyntii wasiirada waxay dib ugu laabteen magaalada Garowe ee dowladda Puntland Soomaaliya ee caasimada u ah wasiiradii ciidamada tirokoob ku sameeyay ayaa waxaa ka dib uga soo laabtay wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland Soomaaliya oo muddo 2 cisho ku sugnaa degmada Shingolol ee gobolka Sanaag intaasi kadib ayaa markii ay maqleen maamulka Somaliland in wasiirka waxbarashada dowladda Puntland Soomaaliya ku sugan yahay degmada Shingolol ayaa waxay ka soo kiciyeen goobihii ay markaasi fariisinka wahaa haatan waxaa la sheegayaa ciidamada Somaliland in ay isku soo urursanayaan deegaamo ka mid ah deegaamada gobolka Sanaag ay ka mid tahay magaalada Carmale iyo weliba meel kaabiga u saaran degmada Naceel ee gobolka Sanaag intaasi darteed ayaa waxaa isbedeshay siyaasadii markaasi labadaas maamul ka dhaxaysay ee ahayd gobolka Sanaag ay inta badan ay isku haystaan Somaliland iyo Puntland ciidamada haatan oo isku horfadhiya deegaamadani ayaa waxaa laga baqsan yahay toddobaadyo foodana ku soo haya in halkaas uu dagaal ka qarxo oo dhex maro ciidamada Puntland Soomaaliya iyo weliba maamulka Somaliland ilaa iyo haatanna wax jawaab kama ay soo bixin dowladda Puntland Soomaaliya oo dhawaan ciidamada tirokoob-kaasi ku samaysay ee Ceelbuna iyo deegaamadeedana laga diiwaan galiyay ilaa iyo 1500 oo askari ee dowladda Puntland Soomaaliya leedahay
balse taa waxaa ku soo aadaysa iyadoo minka ciidamadii somalilan ee ugu tirada badnaa ay kusoo qulqulayaan deegaamadani gobolkani sanaag gaar ahaan jiidaha ku beegan degmadani ceelba ee gobolkani sanaag. faahfaahin dheeraada ayaa waxa ay ka soo baxaysaa weerar lagu qaaday saldhigga degmada boorama ee gobolka awdal. wararkaanu ka helayno magaalada boorama ayaa waxa ay tilmaamayaan in dabley hubeysan ay weerar ku qaaday saldhigga ciidamada booliiska ee degmada boorama ee gobolka awdal, waxaana mas-uuliyiinta sare ee magaaladaasi ay tilmaameen in saldhigga ay weerareen dabley hubeysan oon haybtooda la garan, kuwaas oo toogasho kula dhaqaaqay askarta ilaalada ahayd ee fadhiyay iridka hore ee saldhigga. waxaana ciidamadu ay maanta baaris ka hayaan qeybo badan oo ka tirsan magaalada, islamarkaana lagu tuhunsan yahay in dableydaasi ay weerarkooda kasoo abaabuleen. dowladda mareykanka ayaa waxa ay shaacisay in la dilay hogaamiyihii sare ee alqaacida ee qeybo kamida dalka yemen, islamarkaana hogaaminayay alqaacidada jasiiradda carabeed ee dalka yemen. qaasim al rimi ayaa waxaa la tilmaamay in lagu dilay howlgal qorsheysan oo ciidamada mareykanku ay ka fuliyeen gudaha dalkaasi. madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in khamiistii ay howlgal qorsheysan fuliyeen ciidamada sida gaarka u tababaran ee dalka mareykanka, kuwaas oo bartilmaameysaday hogaamiyihii alqaacidada magacooda loo soo gaabiyo aqab ee ka dagaalanta qeybo kamida dalka yemen. waxa uuna sheegay in lagu bartilmaameysaday shakhsigan oo horey dhowr jeer u sheegtay weeraro ka dhacay gudaha dalka mareykanka, islamarkaana loo arkay inuu khatar ku yahay muwaadiniinta mareykanka iyo sidoo kale guud ahaan danaha reer galbeedka. ugu dambeyntiina safiirka Tehran waa safiirka UK ee Tehran ayaa dib ugu laabtay gudaha wadanka Iran. safiirka boqortooyada Ingiriiska ayaa dib ugu laabtay magaalada Tehran ee caasimada wadanka Iran kadib markii dhowaan lagu eedeeyay in uu qeyb ka qaatay rabshado ka dhacay magaaladaasi xarunta u ah dalka Iran, waxaana lagu eedeeyay in uu ahaa mid ka qeyb galay dibadbaxyo halis ku ahaa arrimaha amniga iyo sidoo kale madaxda sare ee taliska wadanka Iran. waxaana taasi ay ku soo aaday xilli Iran ay iska difaacaysay dhaqdhaqaaqyada reer galbeedka oo iskugu jiray kuwa militari iyo sidoo kale unugyo hoos dalka gudihiisa ka howlgalaya, islamarkaana abaabulaya dibadbaxyo iyo rabshado kale oo dalka lagu qalqalgelinaya, islamarkaana looga soo horjeedo howlaha ay hayaan hogaamiyaha ruuxiga ee wadanka Iran Ayatollah Ali Khamenei iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Iran Xasan Rouhani. guud ahaan dhegeystayaal intaas waxaa ku dhan warkii duhurnimo oo duhurnimada tan